الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أحبتي في الله waxaan rabaa maanta in aan ka hadlo oo wax yar wax ka sheego insha allahu tacaala. cinwaanka ah fi lxathi calaa tacalumi alcilmi annaafic, in laysku booriyo barashada cilmiga naafica ah ee waxtarka leh. cilmigaas ee aan sheegi rabana waxaa weeye waa cilmiga shareecada islaamka. cilmiga kalena waxaa weeye isagu ruuxadiisa anfac buu leeyahay, waxtar buu leeyahay, laakiin waa adduunyada keliya oo waxaa weeyaan isaga unbay anfacaysaa yani intuu yani adduunyada joogo. laakiin kan shareecada islaamka waxaa weeye waa adduun iyo aakhiro labaduba waxaa weeyaan anfac buu leeyahay, waxbuu tarayaa. cilmigana si ogsoon tihiin dee qof cilmi leh iyo qof aan cilmi lahayn isku mid maahan oo ma sinna. qof jaahil ah iyo qof aan jaahil ahayn dee waxaa weeye ma sinna, isku mid maahan, waa kala darajo sareeyaan. ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaat. ilaahi subxaanahu wa tacaala kor ayuu u qaadaa kuwa yacni rumeeyey oo idinka mid ah iyo kuwa cilmiga la siiyey. iyaguna waxaa weeyaan ilaahi subxaanahu wa tacaala kor ayuu u qaadaa darajooyin ayuu kor ugu qaadaa. ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay kuwa ilaahay ka baqa inay yihiin kuwa culummada. innamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa. waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqa addoommadiisa kuwa yacni culummada ah kuwa ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqa. oo kuwa kalena maxaa ku dhacay miyaysan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqin? waa ay ka baqaan iyaguna, laakiin kuwa culummada ah la mid maahan. maxaa yeelay kuwa culummada ah waxaa weeye shareecadii bay yaqaanaan, marka waxaa weeye way ku dhaqmayaan, way ka baqayaan, way is ilaalinayaan. marka waxaa weeye si gaar ah waxaa loo sheegay kuwa culummada ah. cilmigana waa khayr qofkii barta. khayrkana waxaa weeyaan qof kasta iskama helo ee qofku ilaahay subxaanahu wa tacaala uu la doono ayuu khayrkaas siiyaa, diintana fahansiiyaa. waayo nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi man yurid illaahu bihi khayran yufaqihhu fi ddiin. qofka ilaahi subxaanahu wa tacaala uu la doono waa khayr ah, yufaqihhu fi ddiin, wuxuu fahansiiyaa diinta ayuu fahansiiyaa. marka ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh ee naga dhigay dad islaam ah, dad waxaa weeyaan mu'miniin ah oo yacni ahlul iimaan ah naga dhigay. maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunyadatan waa uu siiyaa
qof uu jecel yahay iyo qof uusan jecleenba ilaahay subxaanahu wa tacaala waa uu siiyaa. laakiin iimaanka qof kasta iskama siiyo ilaa qof uu jecel yahay mooye. ina allaha yucdi dunyaa man yuxibu waman laa yuxib walaa yucdi liimaana ilaa man yuxibu. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu siiya adduunyada tan qof uu jecel yahay iyo qof uusan jecleenba, laakiin iimaanka ma siiyo ilaa qof uu jecel yahay mooyaane. qof kaste waxa weeyaan iskama siiyo. laakiin adduunyada waxa weeyaan qof kasta waxa weeyaan wuu siiyaa. qof uu jecel yahay iyo qof uusan jecleenba waa uu siiyaa. waayo gaalku ma jecel ilaahi subxaanahu wa tacaala, haddana adduunyadii buu siiyey. diyaarado iyo lacag iyo adduun buu siiyey, mana jecla. marka halkaa waxaa laga qaadanaya adduunyada inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala siiyo qof uu jecel yahay iyo qof uusan jecleenba. saxaabiga la yidhaahdo abuu hurayra allah kala noqday wuxuu yidhi, nabiga calayhi salaatu wasalaam naxariisi nabadgelyo korkiisa haatee wuxuu yidhi, man salaka طariiqan yaltamisu fiihi cilmaa sahala allaahu lahu bihi طariiqan ila aljanna. qofkii qaada waddadaas uu ku raadinayo cilmi iyo aqoon inuu soo kororsado oo shareecada islaamka soo barto uu ku raadinayo waddadaasi, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u fudeediyaa qofka isaga ah waddadii jannada. sidoo kale abuu hurayra allah ka raalnoqday wuxuu yidhi, nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, haddii uu dhinto ibnu aadanka haddii uu dhinto bini aadanka camalkiisa waa uu burayaa, camalkiisa waa go-ayaa. idaa maata ibnu aadam inqadaca camalu, camalkiisa waa go-ayaa bini aadanka haddii uu dhinto, ilaa min 3 saddex mooye, inta kale waa go-ayaan. saddexda waxaa ka mid ah sadaqatun jaariya, waxbuu sadaqaystay intuu noolaa, sadaqa ayuu la baxay oo sadaqa jaariya uu la baxay. mathalan ceel buu qoday oo dadka muslimiinta ay biyo ka cabaan, masaajid buu dhisay, madarasa qur-aan buu dhisay, kadibna sidii ayuu ku dhintay. camalka isaga ah wuu soconaya marka. aw cilmu yuntafacu bih, ama cilmi lagu intifaaco ayuu dadka baray, isagiina wuu bartay, wuuna ku dhaqmay, dadkana wuu sii baray. marka iyadana waa sadaqo oo u sii soconaysaa. aw waladun saalixun yadcuu lah, ama ma ahee wuxuu ka tegay ilmo wanaagsan oo baari ah ayuu ka tegay, ilmahaasuu usoo duceynaya. aw waladun saalix yadcuu lah. marka waxaa weeye xadiiska isaga waxaa laga qaadanayaa ibnu aadanka
haddii uu dhinto inuu yacni camalkiisa uu go-ayo saddexdan mooyaane, saddexdan wax ka mida mooyaane, inta kale camalada kale inay yacni go-ayaan. Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi isagoo ka hadlaya adduunyada, wuxuu yidhi addunyaa malcuuna, adduunyadu waa lacnadan tahay, malcuunun maa fiiha ilaa dikrullaahi wamaa waalaah, waxaa lacnadan wax adduunyada ku dhex jira, iyaguna waa lacnadan yihiin ilaa dikriga alle iyo wixii la xiriira mooyaane, inta kale waxa weeyaan oo adduunyada ku dhex jira macal adduunyadaba waa lacnad yihiin. Nabiga calayhi salaatu wasalaam sida ayuu sheegay. Waxaase lacnadana aan lacnad aan ku dhicin wa caaliman oo mutacalliman, nin caalim ah oo dadka waxa weeye waxbaraya ee cilmi leh wax yaqaana, ama nin waxa weeye wax baranaya oo arday ah oo wax faa'iidaysanaya. Afartaas baa laga soo reebay, dikriga alle iyo wixii yacni la xiriira, iyo waxaa laga soo reebay qof caalim oo dadka wax sii baraya iyo qof wax baranaya oo arday wax faa'iidaysanaya. Afartaas mooyaane inta kale waa lacnadan yihiin. Xadiiskeena tirmidi baa wariyey, tirmidina wuxuu yidhi xadiisku waa xasan. cali bin abi aalib radiallahu canhu, allah kala noqday, waxaa laga wariyey inuu yidhi, cali bin abi aalib inuu yidhi kafaa bilcilmi sharafan an yaddaciihi man laa yuxsinuhu wayafraxu idaa nusiba ilayh. cali bin abi aalib wuxuu yidhi cilmiga waxa ugu filan sharaf ahaan inuu yacni iska sheegto qof yacni aan cilmi lahaynba, uu dhaho waxa weeyaan anu cilmi baa leeyahay, aqoon baa leeyahay, saana ahay, inuu yacni qofka iska sheegto, uu yacni haddana ku farxo markii yacni loo tiiriyo ee lagu dhaho waxaa weeyaan waxaa weeyaan qof aqoon-yahan baa tahay oo cilmi leh, saan weeye, saanaa tahay, markii la dhahana waxaa weeyaan uu kusii farxayaa. sidoo kale wuxuu yidhi cali bin abi aalib jaahilnimana waxaa ku filan ceeb iyo caay, waxaa ugu filan jaahilnimada inuu yacni qofka iska bari yeelo, uu dhaho yaa jaahil ah, markii yacni aad ku dhahdo waxba ma taqaanid, sidaanaa tahay, wuxuu ku leeyahay yaa sheegaysaa, qofkee weyn, ma aniga buu ku leeyahay, wuu ka xanaaqayaa. marka jaahilnimadana ceeb iyo caay waxaa ugu filan inuu qofka waxa weeyaan iska bari yeelo, uu dhaho jaahil, maanaa jaahil ah, yaa jaahil ku sheegaysaa, weliba isagoo jaahil ah uusa waxba aqoon. waxaan kusoo gabagabeynayaa xadiiska waxaan kusoo gabagabeynayaa cafwan imaamu shaafici hadalkiisa raximahu llahu tacaala. imaamu shaafici wuxuu yidhi man araada addunya facalayhi bilcilmi waman araada alaakhirata facalayhi bilcilmi. wuxuu yidhi imaamu shaafici
qofka adduunya doonayo laazim cilmiga oo cilmiga baro. qofkii aakhira doonayo cilmiga laazim oo cilmiga baro. man araada addunya facalayhi bilcilmi waman araada alaakhirata facalayhi bilcilmi. cilmiga uu sheegayo imaam shaaficina waxa weeye waa cilmiga shareecada islaamka ee ma ahan cilmiga kale ee maadiga ah. cilmiga kale maadiga waa la baran karaa, waxa weeyaan yani waa banaan tahay in la barto. in la barto way banaan tahay. qofka waxa weeye cilmi kale uu baran karaa. dhakhtarnimadoo kale wuu baran karaa, caafimaadka, ingilishka wuu baran karaa, dadku wuu sii bari karaa, wuu ku shaqaysan karaa, xisaabtana sidoo kale, waxaasna wuu baran karaa. waa wax banaan. laakiin waxaasoo dhan waxaa kasii fiican shareecada islaamka, cilmiga shareecada islaamka inuu qofka yani barto. xataa haddii uu baranayo cilmiga kale waa inuu ka hormariyaa cilmiga shareecada islaamka, waa inuu ka hormariyaa. ka waran haddii uusan garanaynin islaamka waxa lagu dhisay ama tiirarka islaamka, tiirarka iimaanka, hadduusan garanayn ka waran shuruudu salaa, arkaanu salaa, hadduusan garanayn ka waran oo jaahil ka yahay intaas, balse uu garanayo keliya dhakhtarnimo iyo xisaab iyo ingilish iyo waxaa keliya, marka waa laga fiican yahay. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. qofkii yani daawada ama dhegeysta videogan waa in uu saaraa subscribe iyo like-ba. subscribe iyo like waa inuu saaraa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.